السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبض وضيال ملك جوجتان waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xog waran barnaamijka xog waran ayaynu ku eegi doonaa qodobo door oo ay ka mid tahay dhinacan iyo dhaqdhaqaaqa dhinaca aqoonsiga Soomaaliland iyo dhacdooyinka ugu dambeeyay iyo waxyaabaha ay wadamada gobolka gaar ahaan dalalka Itoobiya iyo Imaaraadka Carabta oo saaxiib dawladda Soomaaliland ay ka yiraahdeen iyo maxaa iyo sababta ay u aqoonsan laayihiin ilaa hadda ay ugu dhiiran laayihiin iyo Israa'iil dhinaca kale waxaynu ku eegi doonaa bal magaca ama mawduuca la yiraahdo danta qaranka ama national interest arrimahaas ayaynu ku falanqeyn doonaa barnaamijkana waxa igala qayb galaya Professor Ibrahim Maxamed Meecaad oo ah aqoonyahan sare kana mid ah halgamayaashii SNM imikana tan iyo markii Soomaaliland dib loo soo noqotay 35 sano qalinka ku difaacay qadiyadani Ibrahim ayaa fadhigiisu yahay dalka Canada imikana waxa uu si toos ah ugu jiraa khadka telefoonka Ibrahim Meecaad soo dhaw أشكر الله سود وهاي وان السلام يا إليكي هذيك يو بعض أرسل نيش waxaanu kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga iyo sida qiimaha leh aad barnaamijka noogala qayb galayso Ibrahim weyn intaynaan u galin dhacdooyinkii ugu dambeeyay ka dhacay gobolka iyo dhinacan iyo dhaqdhaqaaqa aqoonsiga bal ugu horeyn inta badan waxaad moodaa in la isku khaldo waxa danta qaranka iyo dawladnimadeena ugu horeyn ama national interest waxaan yiraahdaan qolyaha reer galbeedku Ibrahim adooyn sharax kooban ka bixinaya dadkana una faa'iideynaya maxay tahay tan qaran horta dan qaran waa waxa wadanka danihiisu jiro weeya ana ku dhaafay xaq qaado amnigiisa iyo dhaqaalihiisa iyo xorriyadiisa madaxbannaanidiisa iyo wixii danta ugu jirto iyo danta qaranka dad baa loo doorta maaha mid suuqa iska duwaa maxaa ku leedahay qaran doorey inuu danta qaranka anigu saama inuu yiraahdo maga danta qaranka intaas soo qodanaa definition waan gartay tani markay Israa'iil ayna aqoonsatay waxaa jiray dhaqdhaqaaqyo dhinaca diblomaasiyadda iyo xiriiro dawlado badan ay sameynayeen dhaqdhaqaaqyadii ugu dambeeyay waxaa jira macaahido waaweyn oo jaangooya dalalka haddaan idhaahdo Imaaraadka Carabta saaxiib dhownala iyo dawladda Itoobiya aynu jaarka nahay macadka IBC iyo IFA qoraalla ka duwan qoraalladii hore soo saareen Ibrahim ujeedada ugu weyn ee ay kala haayeen maxay ahayd horta marka waxa yiraahdaan qaaladu the icebreaker kii wuxuu noqday Israa'iil the state of Israel madaxweynuhu wuxuu inoo sheegay inuu adduunka iyo dawladda magacuun lahayd ee adduunka ku nool muslim iyo gaal iyo buuda inuu waaqa u wada qoray in xuquuqdeeni macneeyay inay dawlad weligeen baahayn in balaaya inagu dhacday inaan soo noqonnay inaan mantiqada ugu nabadgelyo badannahay inaan xaq u leenahay in la ictiraafo warqad ay ka saaka iyo loo sheegay madaxweyne cidoo muuqda kuwa iska badaa kala duuqeeyay deesheena in inxiraafka ku sameeyay aayadaha quraanka iyo xadiista ee gurigu hormartay kuweena balmeel noodhi kuwii kale ee dawladda sheeganayay waxa ka aamusa iyo wax hadaway lagu noqdo state of Israel baa soo jawaabtay oo saafa ictiraafaha ay dushay markii ictiraafna waxa wixii bustaha wana wixii aamusnaa wixii oo markaa qoorta la soo wada kacay عربي مسلم حتى كفليه انت ميلود مسلم لغو عقابه اي حتى كو عقابه ايو ايلا معانقنا اي وحسيابا ايا دودا انا تري كري marka عرب عند حال كيس كاكا وخير من لو فلسطين تاي شيغان ايغا نوكوي 1948 waa loo kala qaybiyay hadda aqbala maanta قدس الشرقية
marka laba caasimad oo kala ahaan lahayd waddanku ilaa intaa haysta ka badan haysan lahayd marka inay uga warramaan dadka qaranka ummad baan u dooranay codkumadeedna ku fadheen ilaahayna iyo kuwaa la doortay la xisaabtamay dadkuna faasal la xisaabtamay wadaad mustacdika oo xoolaha ummadda kolba aayad uu soo daliiliya umaynaa dooran mufakira oo isagoo meel kale wax ka eegay oo macnaynaya oo individually uu samayn karaa marka adduunka markii la ixtiraafay uu boosu la soo kacay waxaase ugu macno xumaa kuweenii iska gadhigayay ee id loo hunguroodaynay xataa ina xukumaan iyagoo fikoorkooguna dadkiiyo ilaahaygu ogyihiin oo aanu fiicnayn ina iyaguna ay cadaawad u muujiyaan ictiraafkii waxaad sheegaysaa waan filayaa xisbiyada mucaaridka gaar ahaan xisbiga kaabaa aad ka dhawaajinaysaa waan filaya ها كعبة كذا راجل محمود حاسب بناس وسبري إنه خان يهاي بناس صاروا بيري هذا هو وصف كي أتكسر معان كورا ترك وإن لا سيرانا كل وسري معان كورا معنا ترك سوالي بقولي مريكانو هاي والاعتراف مريكانو لمن بعد هلاي ببان هلاي هذه وحدنا مصيبنا هاي والاعتراف مركا محمود عاشورتا إساقا إسكورا هاي تي هوري محان قولا environment ka ahayd waxyaalay badan u sameeyay halkan mawduuciina kuma jirto laakiin wuxuu sameeyay isaga ninkan gaaban ninka wadada haystaa dowladaha qaarkood imika China oo kale dadka saas oo kale maatay xoolo ummadeed dhaca ama kabdani way tilaa Japan kuna qofkaas istiya رجعتي والله إنك أشكال كنا ما كسون نقدر سياسة سياسة إنه نقدرنا هيدا ما كليه لكن ما تأمل كي وين أطلع إنك هتصور دوش سياسة كورفلا معاكم ما تا مركز هو كشي فرعتي منه وهذا ماشي سياسي جوريا يجي تسا نقاسبه وهذا سيد أنت شمالي أو عطيش كمان مرورين كانوا والله أنا كره قال أنا بوس الشرقية والغربية صوت حكا ياسر عرفات كل شيء كفلسطيني سيء بعد ما ينزل بو كفلسطيني سيء وما ده عندي فلسطين وهذول مالي نور شيء سيدا وكل كذا سيء يسير كليه يسير رالي سكجيه أبو مازن بس هذا كذا الأقصى ست هذا التيمود بتبقى كلها أنت ولا تعايش ويان قوس من أبوي فهو أخوانا لما كان محاكو هذا تتكرك أن لا يحل صاري كهر ليا أنت قول الله لك ما ده العق ليس كقارة سواء سيتكرك هوي وهذه يدورون تمكوا عليه شو ويجيو قاسوي كهر لك لكن ولادك استهلك ummadda ku nool sida baarasayidka ee kulba ayadu bedelaya waxba laga muujiyo xadiisana ma in faraha la soo qoro Ibrahim dhinaca markaynu eegno dawladaha Imaaraadka iyo Itoobiya oo la oran karo waa dalalkaynu ugu dhow macaahidda xada siyaasadda arrimaha dibadda ee dalalkaasi waxay soo saareen ishaarooyin la xiriira aqoonsiga iyo say noola macaamilayaan tallaabooyinkaasi Ibrahim maxay ka turjumayaan waxaa kaloo muhiima in aynu xusno laba maxad oo waaweyn oo midna khaarijiyadda Ethiopia ay arrinteeda ay qaadato midna Imaaraadka Imaaraadka waa EPC baa la yidhaahdaa waa think tank mufakiriinta siyaasadda jaangoynteeda wax laga weydiiyo wax ku leh waa Imaaraadka weeyi takalena waa IFA waa Ethiopian Institute for Foreign Affairs bay dhahaan idan khaarijiyadda wax weyn ku leedahay waxa markaa waa arrin ayaamahan ay soo qoreen labadaas soo qoray waxa
markaa aynu isku keen qabtay waxaan ay soo qoreen iyo sababta labadan waddan ee cilaaqaadkeennuna aad u fiican yahay ay uga maagayaan ictiraafkeenna oo dhammaystiran yaa isqabtay labadu wuxuun bay ka wada hadlayaan waxaad moodaa inay kala naqileen labaduba waxay leeyihiin siyaasadda ictiraafka diblomaasigiihii ma dhadhowa mid saasuu yidhi midna wuxuu yidhi ha dambayso waxa markaa aan kula macaamilaynaa waxa igu yeedheen operational recognition whatever that means I don't know waxay uga jeedaan operation yani waxa weeye isdhece maxaan ku rahdaa wax isweydaarsi waxaan da imika intan ay nagula macaamilaan baasaborkooga haloo dhib yareeyo socdaalka waaka laakiin ictiraafka halkaa haynoo joogo marka waxa isweydiin leh why maxay ictiraafkeenna uga warwareegayaan eeg waxbaa la kala iibsanayaa waxaan aan iibinaynaa waa waxa maanta adduunyada ugu qaalisan weeye waa si maariinkii waxay weeyaan badda cadmeed waa albaabkii baabalmandab albaabkii rarsiga weeye albaabkii weeyaan qaacidooyin bay ku leeyihiin waddanka jariidda ugu weynee lamont waxay qortay in ay 3 waddan ay rabaan in halkaa qaacida ka samaysaan oo maraykanka iyo israa'iil iyo imaaraadka etoobiya waa kuwan hunguraynaya marka geopoliticska halkan inagu ka joogno halka ilaahayna dhigay operational recognition wax la isdhaafdhaafsadaya baaxmishari de way ka qiimo weyn tahay maxay u jeedaan labadan waddan markaa maxay naga arkeen waxay leeyihin intanaaba maxaanku idhaahdaa way ku qanci doonaanoo facaynkaasa oo iska labacalneeya dee taa dowladda ay nooga jawaabi taasi waxa weeyaan waa arrin very important oo qoraal baan yaan ku geliyey facebooka sida xaqiiqda ah waa dad badan baa akhristay waa available taa waxaan ku baraarujinaa dowladda labada maxadna waa laba maxad oo aan la dhib yaraysan oo importanka ah jaangoynta siyaasadda khaarijiga marka la qaadanayo EPC iyo IFA midna waa imaaraadka midna waa caynkaasi marka arrintaas way noo qalmo weyday mar waxay yidhaahdaan waynu ognahay waddannada marka la doonayo in la maalgashado ama cilaaqaad weyn lala yeesho ama waxaynkaasa qodobo badan baa jira laakiin labada arrimood ugu muhiimsanay soo ururiyaan waxa weeye stability iyo good governance dowlad wanaag iyo deganaansho la isku hadlan karo marka dee horta deganaanshuhu waa iska ba jiraa halayna joqojoqeeyo dee good governance-kana inagayna jirtaa inaan ishagaajinayo inaynaan ishagaajin gabagabadii ibrahim maxaad ugu baaqaysaa xukuumadda iyo asxaabtaba tan axsaabta dowladdu waa u doqoniimo inay axsaabta undermine garayso waxaanan iibinaynaaba waa multi party system waa democracy waa sidan wixii aan iibinaynay adduunka kuwan iminkaan la macaamilina waa wax basiida maaha waa caalamkii oo dhan waa lagu eegayaa haddaad axsaabtii 3 qoraada meesha jooga dadka kale qaar bay 10 joogaanba saddexdii haddii ay dowladdu kala macnayso dee waa inagii baa markaa is-undermine garaynayna isqallibayna marka arrintaa kulmiye masalan haddii cadaalad baa la eegaya kulmiye muxuu ku noqday national party yaa soo saaray waa cod maaha baala xuufse iyo mid meel ordo iyo mid khaa'ina iyo waxaa mahadde waa cod dadweyne weye wuxuu ku soo baxay dadkaasi ayuu codeeyeen dadkaasi wax codeeyeen madaxweynihii hore ina kahayna umay codayn cabdilcasiisna umay codayn cid kalena umay codayn
isaga u codeeyeen codkaa isagaa leh marka dhinaca laga eego dadkii iyo kii loo codeeyey haddii la yidhaahdo halkaa jooga oo kolba hordhe lagula dhundhunto dee dowladduna waa ku ceeb dowladda kuma aha yani siyaasad fiican oo ay ku doonayaan hadday axsaabta burburiyaan marka dimuqraadiyadii aan ku dacweynayna de ma jirayso isaga kaa de ninkani hadduu inuu yani sharaf leeyahay cid kale u dhiibay u socodsiin lahaa bannaanku u soo baxay oo cadowgiibuu la saftay that's no question about that ha ku warwareegeysanin dadka majuhaal baad moodaysaa madaxdii falastiin baad 15 jeer hadlaysa 1948 wixii la kala qaybiyey yaad been ka sheegaysaa qodis marka waxa weeyaan ninkaas isagu dalama nafsahu anuu yani record fiicanna ma lahayn marka horeba imikana dee sidaas tulmay ama wadani qudhiisa waa lagu jira sleeper salis baa jooga meesha rag baa quurinaya wax waaweyn meelo waaweyn ka haysta oonu ognahay oo isa noocan ninkan oo kale ah sida qudhiisu inuu isu dhigta maaha aad iyo aad ayaad mahadsantahay kaasi waxaa brofesor ibraahim maxamed meecaad oo fadhigiisu yahay dalka Canada oo noogu marti ahaa barnaamijka xog waran